السلام عليكم كسو دو قناه عبد الله بلديني وبرنامجكني ما doonaysa inaad baratid oo maanta aan kaga hadlayno muuqaalkeena labaad ee maanta waxaan uga hadlaynaa civil engineering kaas oo ahaa kii ugu codsiga badnaa ee muuqaalkii kan ka horeeyay ee kaga hadlay electrical engineering ma doonaysa inaad baratid civil engineering haddii aad doonaysid inaad baratid civil engineering waa inaad ku fiican tahay maadooyinka la isku yiraahdo scientific subjects-ka khaasatan xisaab iyo physics-ka kuwaasoo aas-aas u ah maadooyinka engineering-ka dhamaantood sidoo kale waa inaad ku fiican tahay maadada chemistry-ga taasoo ka caawin doonto haddii aad si gaar ah u sii takhasusayso qayb kamid ah takhasusiyada civil engineering-ka oo la yiraahdo environmental engineering marka aad jaamacadda bilowdid maadooyinka aad ku baran doontid waxaan u kala qaadi doonaa laba qaybood qaybta koowaad oo ah general courses oo aad ku baran doontid maadooyin ay kamid yihiin maadooyin sida diini taariikh juqraafi accounting economic computer programming iyo wixii lamid ah qaybta labaad iyagana waxa la yiraahdaa core courses waxaan u sii kala qaadi doonaa iyagana laba qaybood basic civil engineering courses oo aad ku baran doontid koorsooyin ay kamid yihiin sida xisaabta physics-ka engineering drawing oo u kala bixi doona laba qaybood qayb aad gacanta ku soo wareysid iyo qayb computer aad isticmaalaysid labadaba waxa kale oo kamid ah surveying waxa kamid ah basic electrical engineering mechanics numerical methods and analysis iyo wixii lamid ah xisaabta aad ku qaadan doontid civil engineering waxa kamid ah sida differential and integral calculus differential equation and statistics matrices and geometry Laplace transform Fourier and vector analysis physics-ka aad ku qaadan doontid civil engineering waxa ugu muhiimsan kuwan soo socda optics and oscillation and thermodynamics structure of matter electricity and magnetism and modern physics qaybta labaad ee core courses-ka waxay noqon doonaan maadooyin major ah sida details of construction materials structural analysis and design environmental engineering oo u kala bixi doonta 1 2 iyo 3 mechanics of solids fluid mechanics design of concrete structures geotechnical engineering transportation engineering foundation engineering earth retaining structure design of steel structures irrigation and flood control water resource engineering iyo wixii lamid ah takhasusiyada lagu barto civil engineering-ka waxa ugu muhiimsan 5 takhasus kan koobaad waa structural engineering waxay qosaysaa waxyaabaha ay kamid yihiin sida load calculation oo ah in uu sheego engineer-ka inta uu qaadi karo gurigan culays ahaan inuu xisaabiyo number 2 steel and composite structures estimation and costing oo ah inuu si qiyaaso engineer-ka agabka ku baxay guriga sida shamiitada ama sibirka bulkeetiga ama jaajuurka biraha shubka qiimahooda iyo inta tirahaan ay ku baxaysa inuu si qiyaaso taqasuska labaad ee lagu barto civil engineering wuxuu yahay environmental engineering-ka waxay qusaysaa iyadana waxyaabo ay kamid yihiin sida water supply and treatment oo ah sida biyaha xaafadaha loo geliyo iyo daweyntooda environmental pollution waste management iyo climate change taqasuska saddexaad ee lagu barto civil engineering waxa waaye geotechnical engineering-ka wuxuu qusayaa meelo muhiim ah sida foundation engineering waxay tahay inaad cabirto carrada aad guriga ka dhisay intaadan guriga ka dhisin ka hor oo aad ogaatid capacity of the soil waxa la yiraahdo ama awoodda carrada intay celi karto guri dhererkiisa la eegyahay ama culayskiisa la eegyahay inaad ilaaliso number 2 waxa kamid ah waxa la yiraahdo earth retaining structures oo ah in meelaha oo dhul gariirada ku badan yahay oo kale inta guryaha laga dhisayo kale guryahaas waxa lagu sameeyaa cabiro ah inta ay dhul gariirka cabirka gurigaas celi karo waxyaabo qosay iyo wixii lamid ah taqasuska saddexaad ee lagu barto civil engineering-ka oo ah mid aad u muhiim ah waxa la yiraahdaa transportation engineering-ka waxay qosaysaa iyadana dhisidda wadooyinka waaweyn ee casriga ah ama highway-yada airborada dhisidda dekedaha waaweyn dhisidda wadooyinka tareenada traffic management-ga
iyo wixii lamid ah. qaybta shanaad ee ugu dambaysa ee takhaasusyada civil engineering waxay tahay qayb aad u muhiim ah oo la yiraahdo water resource engineering. water resource engineering iyada waxay qosaysaa oo number 1 hydraulic structures oo ah dhisidda dhaamanka waaweyn ee korontada biyaha laga dhaliyo. tan labaad waxay tahay ground water engineering, taasoo ah markii la qodayo ceelasha riiga ka hor waxaa jiro wax dad si sahmiyo halka inta mitir ee biyaha dhulka sii jiraan iyo waxyaabo noocaas oo kale waxa la yiraahdaa water ground engineering. tan saddexaad waa irrigation and flood management, taasoo ah in macnaha biyo gelinta waraabinta iyo ka hortagga fatahaadaha. magaalada Beledweyne waxaan filayaa inay u baahan tahay injineero fara badan oo ah water resource engineer maadaama ay fatahaada ay ku soo noqnoqdeen mar badan. marka haddii aad tahay ninka yimid magaalada Beledweyne oo baranay civil engineering waxaan kugu tali lahaa inaad barato takhasus ka dhigato water resource engineering. qaabka maadooyinka usoo gudbinay way kala duwanaan karaan maadaama jaamacad walba ay leedahay syllabus gooni ah ay ayada samaysatay. marka haddii ay iswaafaqi waayeen syllabuska jaamacadaada iyo qaabka usoo gudbinay ma aha mar walba inay iswaafaqaan, balse maadooyinka ugu muhiimsan ee aad jaamacad walba hadaad dhigata aad ku arki doonto waan ku soo qaadanay. aad baad ugu mahadsan tahay daawashada muuqaalkan. si aad u hesho muuqaalada aan soo gelino fadlan channelka ku soo biir oo subscribe saar, muuqaalkana like saar. halka hoose ee commentigana nagula wadaag faculty-ga aad jeceshahay inaan ku soo gudbino muuqaalka kan xiga. muuqaalkeena halkaas uu ku egyahay. inta aan ku kulmi doono muuqaalka kan xiga waxaan idinkaga tegayaa assalaamu calaykum.